maalmo ka hor ayay ahayd markii si kadis uga qarxeen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayne colaado sokeeye u dhaxeeya laba beelood oo wadaaga Buuhoodle waxaana ku soo qulqulayay ergooyin ka talinaya nabadda oo ka soo kici timay qaar ka mid ah gobolada dalka. dareenka shacabka Buuhoodle ayaa ahaa mid ay ka xun yihiin colaadaasi waxaana sumad iyo calaamad gaar ah u noqon kara qaabka ay uga dhiidhiyeen colaadda iyo banaanbax ballaaran oo shacabku ay ku dhawaaqayeen kelmado ay ugu muhiimsan yihiin Buuhoodle waa nabad dooni meeno dagaal sokeeye. ergooyinkii joogay Buuhoodle waxay si anba qaadeen shaqadooda iyagoo ugu horeyntiiba galay qaabkii loo xalin lahaa colaadaasi isla muddo yar kadib ergooyinku waxay soo fadhiisiyeen labadii beelood ee dirirtu ku dhaxmartay Buuhoodle si gabanimo leh labada beelood waxay u soo saareen baaq nabadeed iyo heshiis kama dambayna qodobada aan ku heshiinay waxaan ku heshiinay Axmed Garaad ninkii Axmed Garaad dila inuu qisaas yahay waxaan halkaa faahfaahin ku darayaa qisaastaasi waa qisaas sharciga la waafajinayo waxa weeye nin inta la soo qabto la dhiibo la dilo arrinku sidaa ma aha maxkamad baa la saarayaa qofku markuu wax dilo cadaaladdu laftiisu u baahan yahay oo qodobka labaad ah dhacdadii dhacday waxaanu kaga heshiinay ninkii qaatilka ahaa ee la soo qabtay ee la sii daayay waxaanu ka xukunnay 50 halaad oo ganaax qodobka labaad ee arrinkaa weheliyaa waxa weeye iyana arrinkii muddaa laga lahaa Axmed Garaad muddu ka lahaa muddadii iyadoo aan dhammaan iyo ka dabatag la sameeyey dhib weyn dhacday arrinkaana isagana waxaanu ka xukunnay 40 halaad oo ganaax colaadka qaraxda Buuhoodle waxay macno weyn u sameynaysaa dadka qaar oo iyagu ka fakaraya oo qura qaabkii u qabsan lahaayeen Buuhoodle isimada iyo garaadada ka qayb galay nabadda oo iyagu ka jawaabaya arrintaasi waxay socdaal ku mareen gudaha Buuhoodle iyagoo sheegaya in Buuhoodle ay tahay nabad حمزة رادية RTN Buuhoodle.